السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبديني وإذا سلاميسا إن أمد بالصوماليات مال والبات جوكتان وحايد الله يا هاي إن قف كستابا أنتي حلقة وتهاي إن دور نمو وناكسن هذي دور كوتهاي أنا قصدين وكالتو الحمد لله روب أيام ما تنودع يجو وفي عينها إنك استمارت حغاير أن حغاد ما تن يرن أحسن هاي ما أنتي وحواية سلام كدب وحا ربا مانتا إنا وحياب بدن إدي شيغو ونفتي إذا مانتا يعني إيه شيدان آسوك لقارني إنا سميو وحكا لما أهم فيديو قوم حاربا قفل بو إسلاما أما قفل بو صومالي أما قفل بو فيديو يدي داوجري أما قف أن داوجرين حتى إنو ماركتي أو كيسان إيه ولي بددك يوتيوبرada استعمالان marka horta maanta saaka marka soo kacay jadwal ku soo kacay hadaba aydiidu weyna jadwal kale ayaa ku jira codsigaas aan wato maanta ina waxaan rabaa adinkana ilaahay igu garab gala adinka ducaysan ilaahay maxaan ku raadayay soo maartay igu naxariisto damdaaf liiga dhigo lee cafiyo adinkana ilaahay cafiyo waxaan rabaa maanta inaan go'aan ka gaaro waxa intaas sano ku jiray oo maartay aad u xumaay kulleeto ilaahay wuxuu raali ka yahay ma ahayn si kasto xataa oo dhaho maartay qofka fankiisa iduu leeyahay ama ibkii fankiisu saas u yahay wuxuu kulleeto ilaahay raali ka yahay bataatan ma aha maanta waxaan rabaa inaan sidii sheego inaan bataatan wixii la dhahayo fan ama ha noqdo fanaanimo aan ku hees aan qaado ama meel aan ka heeso ama maxaan ku raadaaye hees damboon qaado inay bataata halkaa iiga egaatay oo aan noqdo adigan i daawanaya aan fanaanka ahayn ee walaalkeeya ee caadiga ah adoo kale inaan noqdo ayaan rabaa iyo weliba ka fiican hadday suurto gasho insha allah fankeyga hadda kor waa idii sheegay waxaan idhaa fanka waa ka baxayaa mardhow laakiin maalin bay ku sii jiibaysaa maalin kaleba shaydaan baa kula sii tashanay wuxuu ku leeyahay maya ayaan iska yara joog kadib waxay maya meeshaan yartaad ka shaqayso lacagtaadan iska heesayso iska gurguro kadib waxa ayaan markaad joogto iska dhaaf intaas sano aniga fanka mar hore ayaa nacay laakiin maanta alxamdulillah xilliga ugu dambeeyay oo niyadeyda ka soo go'day waliba sacab siila uga soo go'da ayay tahay sababaha jirana idin sheego waa idin dhahay fanka waa ka baxaya laakiin waxaan rabay qofku horta naftu kula ma tashato naftu tii ahayd kula ma tashato maanta yaad joogtaa bariya lagu wadaa adduunka ilaahay maanta saaka markaa hurdada ka soo kacay waxay adiga saacado ka hor adiga ay ahayd markaa soo kacay wiil baa soo wacay wiil markuu soo wuxuu yiri iblaayo mataqaanaa gabar xalay meeshii joogtay meesha aniga ka heesay geeskeyga ku ciyaaraysay ilaa baa ku dhaartay ana heesay iyadana geeskeyga ka ciyaaraysay gabadhii ayaa dhimatay ayuu ugu dhahay wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waxay ila noqotay dee waxaan caadi ahayn waan aamini waay waxaan ku yiri warma gabadha markay meesha xalay ka soo baxday dhimatay maya hadday dhimatay xagee ku nimatay gabadhu waa gabar walaasheena waa gabar dad badan ay yaqaanaan ilaa hadda aniga beenku diima sheegayay gabadha waxa la yiri jirkeedii waa go'ay ma la arkayo ilaa hadda aanun aaminsanin qalbigeyga aad buu cabsanaya wuxuu cabsanaya waa wacay xitaa wiilkii waxaan dhan nambarada ii soo dir wiil kale oo meesheeda imaan jiro dadka keeni jiro taksiila ilaa hadda wiilkaas magaciisa bas waa la sheegay laakiin ani muuqiisi inaan garanayo waa garanaysaa lagu dhaa laakiin magacii maybe dad badan oo ani waxa jira aan muuqa garanayo oo magacooda aan garanaynin laakiin gabar aan caadi u garanay ay ahayd waxa la horta ilaahay oo naxariisto adinkana u soo duceeya wixii aad leeyahay faasha u sii socdeen la dhahay markii u sii socdeen waxa la yiri gaariga iyaga saarayeen walaasheed iyo wiilal kale iyo dad kale la saaray way ka degteen bal fiir malakumudka ilaahay bal fiir qof markuu dilaayo si day doonta waa u dilay laba qofood bas baa war ku soo hareen ku kale gaari kale raaceen gaariga kale markay raaceen isla daqiiqadii yaa la yiri gaari kale taa ku yimaad wiilkiina wuu go'ay gabadhiina waa la arki laayaa la yiri ani ilaa hadda ma ogi horta ilaahay run kama dhigaan qof dhintana sooma laabto
midda koowaad laakiin waxaa qarraacan igu noqotay oon aada uga naxay oo aan aada uga xumaaday waxa waaye xalay inay meesheeda joogtay ee weliba garabkeyga ka ciyaaraysay maantana la oofsaday bal fiiriya gabadha qof walbaba camalkiisa oo aakhiro la tagaa yees waa run laakiin waxaa jirto waxyaabo qaar isla markiiba waxaa iisoo sawirmay anigii kama marna meesha saymaana anigaa ka daran intaasoo qofood anay ii imaadeen fiidiyoyada xalay ugu dambeeyaa soo geliyey isla fiidiyooga markaan soo gelina waa ka saaraa heesayga barefada geliyey waxawaaye waa wada tirtiray wixii aan aniga hees qaaday ay ku jiray youtube-kayga waan iska tirtiray walba wax badan kuma jirin youtube-ka raagaha kusoo haray youtube-ka raagana iga tirtira ayaan dhaha waa kaa tirtiraa ugu yidhi waxaan kaloo rabaa aniga waan naxay waxaan ku naxay awalba fanka waa ma rabin habeen kasta waan cabsadaa habeen kasta waxaan ka cabaqaa niyahow waxaan fahmi waaya habeenkii maalintii dadku isku fiilin maahan aniga habeenkii maalintii sidaan caadi u ahay habeenkii waa ka cabsi badanahay marka si kastaba ha ahaatee waxaan halkaan rabaa inaad iga gaarsiisiin dadka heesahayga ugu jiraan qofkou doona ha ahaado qofkii fiidiyogeygaan arkay bataatan inuu fiidiyogeyga heestayda uusan youtube-kiisa ku jirin meel kasta hadduu isticmaalo iyo haddii kaleba baliis waxaa idinka codsanayaa walaashin idinka codsanaysaa inaa bataatan iga tirtirtaan heesahayga oo dhan maadaama aniga aan fankii go-aankeyga ugu dambeeyay uu yahay aan ka gaaray codsi ayaan wataa qofkii inta fiidiyogeygaan arko oo youtube-kiisa heesteyda ee kasii isticmaalo ama sii gashto aakhiriyo adduun ma cafiniyo ilaahay baa loo toobadkeelaa ilaahay waa u toobadkeelay hees dambana leeguma oga maalin walbaba waxaan isdhahaya israaqadan ilaah baa baxsho fankii hees iyo fan iyo balaayo wixii lacag iga soo geli lahaa ilaahay waxaan ka baryay markastana aan ka baryi jiray aan dhihi jiray ilaahayo israaqad meel kaleeta iga sii maantay in aan bataatan aan fankayga soo gabangabeeyey dambana aanan rabin inaan kusoo laabto meel aan ka heesa ama dambe aysan jiri doonin heesna inaan qaado ilaahay baan ka magagalay ilaahay teydaa ii rumeeyo aniga shaydaan waa dagaalamay muddo badan aan dagaalamayna muddada aan dagaalamayna waxawaaye uu iga xoog badnaa jiray because wuxuu iga dhaadhici jiray israaqada inaan ka helayo meelaha fanaannimada ah wuxuu iga dhaadhici jiray inaan ahay inaan helayo lacagtaan u baahdo fanaan haddaan ahay oo fanka ah ku jiro ma fahanteen laakiin marka maskaxdeyda iyo ilaahay aan niyadeeda gashta israaqada ilaahay qofba meel ku siiya intaan hadduu ilaahay ugu soo siinaayay maanta niyadeeda waxaa ku jirta inuu meel kale ilaahay iga siinaayo idinkaan i daawanayo hadda raydnaa u daawanayo ayaa isiinaya lacag ma fahanteen every video aa soo geliya aad daawatiin lacagaan ku helayaa fanka marka muxuu ii tarayaa nothing wuxuu ii taraya mala business yaraan samaystay ilaahay i barakeeyo waxyaaba badanaa samaysanayaa fan ma rabo qofkii heesteyda shalay markaan soo galayay waxaa ii geysatay shaydaannimo iyo caqli yaro maanta damoor aad sii weyneynaysid damoor aad sii xumeynaysid waa laga fiican yahay waxaa fiican qofku markasta uu sii weynaana garaadkiisa sii badanayo godkana waad usii dhawaanaysaa dad baa waxay isleeyihin dhallinyaronimada markaad weynaato ka tabadkeen yaa ku og inaad gaaraysid markaad weynaato aniga waxaa idinka baryayaa laba wax waxaa waaye midda koowaad inaad ii duceysaan oo ilaahay iigu duceysaan wax ka qayr qaban fanka inuu isiiyo oo aanad dib dambe ugu soo laaban shaydaan iyo aniga aan meeshaas ku kala joogno fanaannimada kaliya shaydaan maa waxyaaba badanaa shaydaannimada shaydaanku waa aragteen qofaan dambi gelin ma jiro hadda ka bacdina dambi ma gelaayo ma dhahaayo waan gelayaa bilaaadana ah laakiin mid ilaahay ii yasiro oo aan ka toobad keeno mar walbaba allah iiga dhigo midda labaad inaa fiidiyogeyga u sheergaraysaan qof walba oo youtube-kiisa heesteeda ku jirtana aad rabood ku qabataan hadduu u ka bixi waayo xitaa allah ka dhigay youtube-ka raaga runtaa idiin sheegaya hadduu ka bixi waayo qofkii aakhiriya adduunna macfinaya qofkii heesteeda sii daawado oo sii gashto oo shaqo kasii raadsado oo israaqad ka raadsado oo fiyuus ka raadsado ma cafinaayo anigaan hadda soo idinlama waxaynu waxaa weliba iigu daran halkan waxaan rabaa fariin inaan ugu diro daahir cali soo koow
daahir cabdulla cali soo heysay youtube-kii ku jiro bataata waana youtube-ka ku jiro waana bataata ka saartaa hadda ka horna aanoo fanka ka bixin oo fanaanimada markaan intaana ka bixin heysii aan madaxayga qaawnaayeen ayaan fariina u qoray waxaan ku yiri iga saar heysaa bataata madaxayga qaawan yahay midda kaleeto qof kasta oo heys aan leeyahay arko inta jecel wanaagayga jecel ee maanta ku faraxsan wadada aan qaaday ee islaamnimadu ay ku jirto waxaan ka codsanayaa bataatan qofkii iga saari waa inaad iga report gareysaan waliba maahane waliba inaad sida aan u cafinayni inaad adikuna u habaartaan oo igu habaartaan inuu waxayga xoog haduu ku haystana xoog Allah ka qaado haddaba waa idin sheegay shalay fanaanimada markaa ku soo galay qof aan la sheergareeyay ama dhahay ma jirto maanta fanaanimadeeda aan soo galay kana sameeyna inta idima aqoon man adikna ima aqoon laakiin maanta way taqaaniin qof kasta oo youtube-kiisa heesteeda ku jirto waxaan ka codsanayaa inuu ka saaro ama mid hore haato ama mid dambe haato ama waxa haato fiidiyoda kala oo hadalka qofka raba ha qaato fiidiyoo hadlay dib malaha laakiin fiidiyoo hees ay muusiga ku jirto oo heesiyo raali kamihi fankan waa iska dhaafay ilaahayna waxaan ka baryayaa mar dambe inuu soo igu celin israaqada ka heli jirno meel fiican ilaahay kale iga siiyo inta codsi iga tahay ma fahanteen aniga iyo shaydaan iyo fisqi iyo dadka meelaha aan soo warmeelahan kiisa intaas oo qofooda madaxayga ku imaanay lacag ku soo galaayeen waan wada caweynayni waa wada farxayni laakiin waxaan isku imaanayna ma ahayn wax maxaa la yiraahdaa wanaagsan waxaan sameyn karnaa meelaha isku imaan karnaa adoon lacag ka bixin adoon lacag maxaan ku raadaa dhiibeen adoon heesin adoon ciyaareen meelaha isku imaan karnaa way jirtaa ku wada sheekaysan karnaa ku wada qaraxaysan karnaa ku wada farxi karnaa oo walaalahayga aan ku wada kulmi karnaa ku wada sheekaysan karnaa dad islaamana dad walaalaanay laakiin no more martaba ma dhacayso mana dhici doonto inaan meel dambe ka yeeso ilaahayna ka maga galay ilaahayna waxaan ka rajeynayaa sida fanaaniintii hore inta fanka ka bixi ku soo laabtay inaanan noqon niyadeedana maanta kuma jirto mana geli doono shaydaanka inta ilaahayna ha iga haay ii soo duceeyo bedel khayr qaba ayaan rabaa fanaaniinta kale ee ku jirana waxaan u sheegayaa maanta waa noo shahay bir waa dhimanaysaa marka dhimatidna koo su'aalaha lagu weydiinaya kamid tahay heesaa waa ka toobadkeenay fanaan kasta ku jirto wallahi niyadiisa aniga waa qof kasta oo xumaan ku jiro wuxuu isku tala jiraa inuu maalin un ka toobadkeen doono laakiin maalinta yaa ku gaarsiinaa garantiin muu haysatiin waa salaamantihiin miskiinta ina Axmed ahayd fiidiyowgeeda waa inaad ii share gareysaan waa inaad tustaan dadka heesayga daawadana waxaad ka codsiga taa kuwa heesayga daawada codsiga taa waxaad leeyahay ha daawanin oo idin baryaaya kuwa ay ugu jiraan haddaad iga saari weyso waa kuma cafinaa ani waxaas waa iska daay bataatan waa iska daay waxaas waana salaamantihiin waxa waaye israaqadna khayr qabta oo ka fiican ilaahay isahlo youtube-kaas anoo saan u asturan haddaad ii soo fadhiisto oo maxaan ku raadiyay daawatiin waa lacag xalaal ah oo sida ila tahay haddaana qof isku dirin haddaan dad caynin haddaan dad luxmaynin haddaan xumaan ka sheekinin kuleyto sidaas ayaan umalaynaa culamadana waa weydiin doonaa insha allah waa mahadsantiin jazakallah khayr ilaahay waxaan ka baryayaa qof walbo aniga inuu ilaahay sida wadada wanaagsan wada tuso waxyaabaha badan aan iska dayno dambigu ma aha heesa kaliya waxyaabo badan ayaa jiro aniga businesskayga ilaahay inuu ii barakeeyo youtube-kaygaas waxaan ku shaqaysto oo aan xumaan idin soo gelin oo wax xun haddaad igu aragtiin waxaad igu tiraadaan qaali waxaas waa wax xun adikoon caayin oo xumaan igu soo gudbin message ahaan waxaad igu soo gudbisiin walaal waxaas ma fiicna qaali iska daa haddaad dhar qaaqaawan xirto ii sheega waxaad igu tiraan dharkaas ma fiicno iska daa haddaa aragtiin wax xun aan gadaayo waxaas kuleyta maanta kuma tali jirina wax xun gado laakiin walaalahey ayaa tihiin walaashiin ayaan ahay maanta aniga kale dambiga waxa waaye idinlayma qoraayo dadka ila daawanayo wax xun aan soo sheergareynaa ee ii sheergareynaa ila gareynayana way ugu la jiraan dadka heesaa dhageystaa kuwa qaado waa seema leeri marka adinkana waxa isku boraarinayaa waxyaabaha xun aad sheergareynaysan iyo heesaa inaad iska dayno fanaaniinta gabdhaha iyo wiilasha fanaaniinta Soomaaliyeedna waxa leeyahay fanku waxaar laga gaara malaha lacagta adduunka dadka heshitaa meelna kuma gaartid been idiima sheegay intaas oo sanaan ku jira fanka
maalinna wax aan ka faa'iiday macnaha lacag maanta dhan aad cunaydo aad wax ku xiranayso aad inta sameynayso aad inta geynayso ani maxaan isdhihi jiray lacagtan aad familkaaga iyo adiga u baahan iska isticmaala waxaan samaysta laakiin maanta youtube-kayga lacag heli karaa barnaamijyadeeda businesskayga kale aan samaystay ilaahay barakeeyo adinka ayaa lacag siiya adinka ayaa dhan kasta garab kasta iga taagin fanaannimada heesta aad igu daawan jirteen ama meelaha aan ka heesi jirana waxa waaye youtube-kaygaan ka helaya galabta xagga aadi jira inta idin kaga sheekeynaya ma fahanti haddaad kulankayga u xiistiina meelaan iskugu imaanayna oon ka wada sheekeyn ku wada farxi karnaa oo anagu ku dad caayin ku wada sheekeysan karnaa anaga dadka masaakiintaas wax ugu qaban lahayn iyo waxyaabo badan iyo diinteena isaan u horumarin lahayn inaan ku tala jirno dad baa waxay leeyihiin qaali hadda sheeqay noqonaysaa kan waaye dad wax sheeqnimada lagu sheegayo waa adiga afkaaga laga amaan helo salaadaada dukato gurigaaga joogo reerkaaga dhaqdo waa intaas ma ahan inaan aniga maanta aan dhaho dugsi hebelaan galay haddaan galana wax xun ma ahan laakiin muhiimadu waxa waaye fankiya waxaa noo sii dheer wallahi inaan bidin sheegin xan qof kasta u sheegaya maanta haddaan meel tago waxaan tama qof baan xamanaya qof walba anoon heblaaye hebel dhaynin qof kasta oon afkayga magaciisa ka soo qaaday iska kii cafiyo anna cafisa iga tihiin ilaahayna waxaan ka baryayaa wax xun inuu ilaahay iga dheereeyo oo aan noqdo qof iska caadiya oo idinka camal ah mada kale waxa kale oo idinka codsanayaa meel haddaa isku aragno fanaanada qaaliladan yaan lay dhihin magacayga waa qaaliladan waxaad idin karteen qaaliladan waxaad idin karteen qaali axmed laakiin fanaanadeena hay dhihinayna bliis fanaanadiina nihi maanta waxaan ahay walaashiin miskiinta ina axmedaheeda ahay miskiinta ina axmedaheeda inii ahay ma fahmi huseen miskiinta ina axmedaheeda ayaan maanta idii ahay biridii ahay biri dambena inii ahay qaaliladan waa idhihi kartiin laakiin fanaanadii bataata inaan aad dhahdiin marow waa mahadsantiin jazaaka allahu khayr hal iisoo duceeyo gabadha walaashay ee dhimatayna maanta weliba aan aad ka uga naxay shalay qofkii agteeda ka heesayay ee maantana iga hooseeyo wallaahi waa waxaan aad uga naxay sababtoo waxaan uga naxayaa waa fahmi kartiin qof walbaana ha ku duceysto maalin saad u wanaagsantaa maalin lagu qalooci kara laakiin maalin walba waxaad ku duceysataa daqiiqad yar allah ka dhiga waxaad ku duceysataa inuu ilaahay kugu duwo toobada toosan adoo toosan oo dheeda qofkaa wuu xun yahay qofkaas qof xun waaye qofkaas ahlunaar waa ma dhihi kartid ma fahmaysin dembigeena wuu badan yahay fanaanimada dembi ka badanaa jiro kaas xitaa allaha iga cafiyo inta dembi aan galay ilaahay baan cafiska weydiisanaya adig idinkama weydiisanaya laakiin ii duceeya fanaaniintii naga horreeyey ee kuwii dhintay iyo kuwa maanta ku jira ayagoo waaweyn waxa waaye na u duceeya qof kastoo islaamana u duceeya soo ma aan fahmin jazaaka allah khayr waa mahadsantihiin waa kaasaa youtube-kayga waxa waaye subscribe dhabha lagu dhaho hal ii sheer gareeyo youtube-kayga waxaan rabaa shalay markaan fanaan ahay iyo maantoona fanaan ahayn differenka u dhexeeya inuu noqdo inaan maanta ka level sareeyo haddii aad shalay igu taageeri jirta fanaannimada maanta waxaad igu taageeri kartaa walaaltinimadaada jacaylka walaaltinimo qofkii si personality ee ku jecel ama si caadi ku jecel waa qofka wanaagaaga jecel ma fahanteen shalay haddaad fanaannimo igu daawi jirtay ama aad igu taageerisay maanta waxay igu taageeri kartaa walaashaada jazakallah walaashaada ayaan ahay waa mahadsantihiin waxaan ku yiri fanaaniinta kale say dad badan ayaa jira oo niyadooda ku jirto is aaminsan fanaannimada kaliya inay saraaqada ku helayaan laakiin inaad tustiin maanta inaan maxaan ku rahdaa aan ka level saray karo oon ka waxays badnaa oo youtube-kayga ka views badan karo oo ka like karo oo share oo ka subscribe badnaa karo ma fahante waana mahadsantihiin everydayna waa idiin soo fadhiisanayaan markaan waqti helab waa idiin soo sheekeysanaynaa waa wada qaraxaysanaynaa filmaan waa idin dhigi karaa filim waa soo jili karaa filimku wax waay haddaan isqaawinin oo xumaan idiin soo gudbinin oo wax caadi idiin soo gudbinayo filimku dambe kuleeta inuu yahay muu malaynaayo waa hadalkuna heesta ayaa xaaraam ah hadalku hadduu wanaagsan yahay uu yahay filim caadi aniga odageygana waxa waaye markasta waxaan dhahaa heesa dambe yahan duubin mar waraaba ku dhahay heesa video waa duubin hadduu duubana kuleeta asaga ikhtiyaarkiisa laakiin anigu waan u sheegay filmaantaada iyo aniga asagoo maanta idiin soo fadhiisan aadi ka badan ama aniga oo idiin soo fadhiisto intaas waa mahadsantiin
khayr allah idisiiyo ducada iisoo kaba walaashayna iyo wiilka dhintay iyo qof walba maanta islaam adduunkan ka tegay u duceeye kuwa hore u tegana ilaahu naxariisto kuwa maanta dhintana allahu naxariisto kuwa noolna allahu naxariisto ilaahay noo wada naxariisto jazaaka allah